garadka dhiirigeliyay markay dhawaaqayga maqleen inaan u taaganahay maanta musharax xildhibaan golaha deegaanka ee caasimadda ah igu garab istaagay igu dhiirigeliyay inaan hore u socdo waxaan leeyahay aad baa u mahadsantihiin mar labaad cid kasta oo muuqayga magacayga kartidayda aqoontayda waayo aragnimadayda garanaysa kuna kalsoon hawl kasta oo bulshada ay ii igmadaan inaan ka soo bixi karo kana dhabayn karo riyadayda iyo rabitaankooda waxaan mar labaad ka codsanayaa inay igu garab istaagaan codkooda si aan uga mid noqdo xildhibaanada golaha deegaanka caasimadda Hargeysa mar labaad iyo mar saddexaadba aad baad u mahadsantihiin waxaan kaloon doonayaa in carabka ku yar dhufto haddii maanta yacni rabitaanka aan doonayay inaan ka midho dhaliyo hamigaygii ahaa inaan ummaddayda u shaqeeyo haddaanay maanta ii khayr lahayn aakhiradayda oonan ummaddana khayr u lahayn ilaahay waxaan ka baryayaa inaanu isoo saarin idinkuna aamiini dhaha qodobka ugu dambeeyaan doonaya carabka dhufta waxa weeyaan golihii deegaankii naga horreeyey kuwii ka sii horreeyeyba waxbay qabteen wixii ay qabteen way ku ammaanan yihiin muddo dheer ayay shaqaynayeen oon ku garab taagnayn oon markii musharaxiinta ahaayeen kula shaqaynay ugu tanaasulnay ku garab istaagnay maanta waxaan iyagana ka codsanayaa wakhtiga dheer ee meesha lasii joogaa nacitaan bulshadu u keenahay inay kursiga ka tanaasulaan nagu garab istaagaan na sharaxaan nala shaqeeyaan nagu soo dhoweeyaan si aan hawshii ay qabteen halkaa iyo meel ka fog aan u gaadhsiino bulshada waxaan u sheegayaa inaannu diyaarinay gacantana ku hayno barnaamijkii caasimadda lagaga dhigi lahaa caasimad nadiifa oo bilicsan oo la tartanta caasimadaha qayrkeena jaanib kasta oo ay noqotaba barnaamijkaana waan soo gudbin doonaa markii gaadho arrinka ololaha ay gaadho waxaan aad iyo aad ugu hanweynahay ugu kalsoonahay inaan ummaddu wixii ay noo igmato si qurux badan uga soo bixi doono wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu